السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waa barnaamijka martida Kalsan oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Malmo oo iyadu kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn wadankan Sweden. Waxa martii inoogu ah toddobaadkan barnaamijkeena Mubarak Maxamed Cabdiraxmaan oo ah wiil dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo in badan oo kamid ah garanaysa. Mubarak waxa uu safka hore kaga jira siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee iyagu ka qayb qaadatay doorashooyinka la soo dhaafay ee wadanka ka dhacday isagoo waliba hadda ka shaqeeya ama kamid ah golaha deegaanka magaalada Malmo. Mubarak waxa aanu kula kulanay magaalada Malmo si aan wax badan uga ogaano qaybo badan oo wareysigan uu ka koobnaan doono oo ay qayb ka tahay siyaasadda iyo Soomaalida heerka ay ka gaareen wadanka Sweden iyo waliba barnaamij qurux badan oo ah film laga sameeyay burcadbadeeda Soomaalida oo sheeko qiso aad u fiican xambaarsan oo magaciisa la yiraahdo Fishing Without Net oo isagana lagu soo bandhigi doono magaalada Malmo cinema ku taala 4 March oo isagu barnaamijkaas uu fududeeyay dadka Soomaalida inuu filimkaasi soo gaaro. Marka wareysigeenu qaybo badan ayuu taaban doonaa. Mubarak ku soo dhawow kulanka Kalsan iyo studio magaalada Malmo. بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantihiin TV-ga Kalsan ay siiyay fursadan inaan ka waramo barnaamijkan wadno aad baad mahadsantihiin waa dhawahay Mubarak barnaamijkaas qaybihiisa dambe waxaynu geli doonaa waqtiyada dambe barnaamijka bal marka hore aynu xogaa dib u yara malaysano waxa jirtay in aad xubin ka ahayd doorashooyinka la soo dhaafay dadkii Soomaaliyeed iyagu u tartamayay inay qayb ka noqdaan ama soo galaan safka hore ee masraxa siyaasadda wadanka Sweden fikirkaas inaad ilaa halkaas socoto adoo dhalinyaro ah goorma kugu dhashay maxaa kugu dhaliyay hortay niyo marka dib looga fikiro qofka noloshiisa maalinteeba arintan u sababahayd ama way yar adag tahay dhowr waxyaabooyin baa la oran karaa ayaa u sababay anigu horta mar walba waxaan ahaa qof xiiseeya arrimaha bulshada doonaya inuu ka shaqeeyo si kor loogu qaadi lahaa arrimaha bulshada saan ognahay arrimaha bulshada siyaabo badan baa loo kor qaadi karaa laakiin waxa door weyn mar walba ka ciyaara dadka siyaasiyiinta ah waana meel aan u arko dadka Soomaalidu ay runtii ka maqan yihiin oo mataqaanaa door weyn kama ciyaarna halkaas anigu magaalada Malmo waxaan ugu yimid inaan jaamacad ka barto أنا markii hore reer Stockholm ahaa magaalada Malmo jaamacad markaan ka bilaabay markaasaan bilaabay inaan ururka xisbiga ku biiro awal waan codeyn jiray waan xiiseyn jiray laakiin marna ma ahayn qof xibin kamid ah laakiin markaas ay ugu horeysaan member ka noqdo sidii baan u waday inta jaamacada ku jiro dhan baan ka waday qayb siyaasadda oo wax ma taqaan waa process dheer marka 2007 ayaan ku biiray xisbiga Social Democratic waa xisbiga ugu weyn Sweden waa xisbiga ugu in badan hayay wadanka Sweden taariikh dheer leh runtiina dadka Soomaalidu aad ugu codeeyaan oo yaqaanaan oo ah xisbiga ma taqaan dadka xisbi walba dad baa u codeeya dad meel ka soo jeeda waxa la raakaa xisbiga Social Democratic waa xisbiga u jilicsan dadka ajnabiga dadka dhibaataysan oo mar walba doonaya dadka fursadahooda si loo fududeyn lahaa Mubarak adigu mahadsan waxa jirtay doorashada hadda aynu soo dhaafnay tira badan oo dad Soomaaliyeed ay meel kala duwan ee wadanka Sweden qayb ka ahaayeen xisbiyada kala duwan ee wadankan ma soo ran kartaa doorashadaas tiradii laga rabay Soomaalida way ku jirtay mise waxa leedahay ma soo gaarin wali markii loo eego si guud Soomaalida kuna wadanka Sweden tirada looga baahnaa inay siyaasadda ku biir اللي horta anigu runtii doorashadan aad baan u farxay dad fara badan oo Soomaaliya oo magaalo weyn magaalo walba ka sharaxan in la arko hada baarlamaanka kaliya waxa u sharaxnaa ilaa 30 wigaariyin ka sharaxnaa waa arin lagu farxo runtii intaasoo dada oo mataqaan Soomaaliya rag iyo dumar balle dhalinyaro leh oo u sharaxan hore loo ma arkin waxan waa process waa la heli doonaa fursadooyin ka sii wanaagsan laakiin meel laga bilaabaa marka awal may jirin dad sidaa u fara badan oo mataqaanaa doonaya inay engagement ka qaataan siyaasadda wadankan san ognahay dadka Soomaalidu mar walba waxay xiiseeyaan oo ka hadlaan wadanka ka dhacay isla markaana halkan waa lagu nool yahay marka waxa muhiim ah meesha lagu nool yahay laftigeeda in door weyn laga ciyaaro tan baa saameyn ugu leh anaga tan baa ciyaalkeena saameyn ku leh waan ognahay dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyinka badankooda waxa lagu xalin karaa hab siyaasadeed laakiin
qof kale maba oga dhibaatooyinkaas mana laga yaabo inuu xalkoodii keeno laakiin inagu haddaanu samayn weyno hawshaas oon geli weyno qof noo samaynaya ma jiro marka runtii niyo anigu horta aad baan u faraxsanaa dad badanna waan bartay oo mataqaanaa waxyaabo badan lagu farxana runtii waan kala socday miidyada adigoo mahadsan markii la eego siyaasadda waddankan qaabka ay u shaqayso ma la oran karaa qofka ku soo biiraya waa inuu wax badan ka og yahay habka wadamadan ay u shaqeeyaan siyaasadooda mise waxa weeye qofku waxaa jirta waddo kale oo kasoo geli karo siyaasadda sida Soomaaliya oo kale wadaniyo wax kasta mataqaanaa bilow bay leeyihiin maalin walbana waxbaad faa'iidaysaa aniga igana kula hadlaya anoo intaasoo sano kusoo jiray haddana maalin walba weli waxbaa ii harsan oo dee maalinba waxbaad faa'iidaysaa isla markaas siyaasadda marka laga hadlayo waxaa jirta wax la yidhahdo luqadda Swedishka representationskap oo ah matalaad waa in uu qofku xaq u leeyahay dad matali kara marka ma aha wax la sugayo oo la oranayo qof dadku waxa ka diyaar garoobaan ka bartaan ma bulshada maanta wadankan ku nool kala barobar waa rag kala barobar waa dumar waa qasab xilalka oo dhan inay dumarka iyo raggu ku wada jiraan oo waliba u qaybsadaan 50% waa wax mataqaanaa laga gorgortamaynin sidaas oo kale ayaa dadka Janabiguna tiro number bay ka yihiin tusaale ahaan in maalmo wax lagu qiyaasay ilaa 30 ilaa 40% marka xubno kasta oo la qaybinayo 30% 40% wani noqdaan dad Janabiga wax gorgortan galaya maaha marka dadka haday yihiin dad mataqaanaa iyaga baranaya waxaan mataqaanaa qofna kuma dhalan dhalinyarada soo gala oo 18 jira 20 jira aqoon badan uma laha laakiin waa la baran karaa wax weeye wax saaw adag oo complicated maaha waxa ka muhiimsan in la helo matalaada dadku matali karaya kadib systemka waa la baranayaa courses baa jira oo lagu diraya waa lagu diyaarinayaa information badan baa lagu siinayaa marka qofku hadduu xiiseynayo arrimahan u jilicsan yahayna wuu ka faa'iidi doonaa haddii aanu eegno kusoo biirista siyaasadda waddankan Sweden oo ah isagu waddan dad tiro badan oo Soomaali ay ku nool yihiin maxaa faa'iido u jirta dadka Soomaalida inay siyaasadda ku biiraan waxa weeye dadku way cabtaan waxay leeyihiin maanta maxaa sidan lagu sameeyay maxaa dadka mataqaanaa wax tusaale ahaan price-ku muxuu qaalisan yahay basku dadka maxaa wadankoodii maxaa loo aqoonsan lahayn wadankoodii maxaa la raadayay dadka maxaa loo celinayaa dhibaatooyin badan baa la cabanaya dhibaatooyinkaasna waxay ku sal ku leeyihiin siyaasiyiinta iyo go'aan gaareen marka haddii aan meeshii go'aanka laga gaarayay aan dhex fadhiyin waxa imaanaya go'aamo badan oo aan mataqaanaa ku cajibin marka taasaa keenaysa inaad ku qasban tahay inaan meeshii go'aanka ka dhacay inaad dhex fadhidid oo codkaaga ka sheegatid oo raygaaga sheegatid oo isku dayid dadkana soo jiidatid inta badan waxyaabo qaar waxa moodaa inay aqoon darro ugu wacan tahay anoo hadda waxaan uga hadlaa arrintan baasaboorka inay Soomaalidu ay 5 sano ku qaataan sida ummadaha kale oo dhan runtii marka dadka kala hadlay aqoon baa uma lahayn ma ogeyn ma sidaasa markaan ku raado dadka qaarna 5 bay ku qaataan qaarna 8 bay ku qaataan marka waxa weeye waa loo baahan yahay marka waa muhiim weeyaan lawana laga maarmaan haddaan waddanka ku noolnahay oo aan doonayno xagana ku noolaano go'aamada siyaasiyiintuna wayna saameynayaan inagay marka waa qasab in anaguna codkeena ka dhigno adigoo mahadsan haddii aynu eegno si guud waxaa loo hadalhayay qaabkii dadka Soomaalidu ay u soo galeen xisbiyada kala duwan ee waddanka ka jira ma la oran karaa laftigeedu macnaheedu waxa weeye isfahan la'aan ka jirta ama aqoon la'aan ka jirta inay dadka aqoon la'aan haysta dadkii tartamayay waxay sababtay in codadka kala qaybsamaan oo suurtagal macnaheedu in la soo saari waayo hal qof oo baarlamaanka guud loo soo saari waayo waxa keentay in codadka kala qaybsamay oo aqoon ama ha noqoto ama hebel ha u codaya ha noqoto haddii codadka meel isugu geyn lahaa oo kale in dad la soo saari lahaa marka taasi dib u dhac ma tahay oo khibradda inay siyaasadda Soomaalidu ay u leedahay la xiriirta horta kow وإننا نقولنا قف كسته هرت حق ولا هي إنه ترتمو قف كسته عدين إنه حق ولا هي إنه حسب قدرنا يقف قدرنا عدين مركها تعال لما عجيم كرينه ديمقراطية الملك كده عين عدنا لأنه ونيو وقف كله السوشيال عمل بكله ما صورتك المعتاسي تعال لكن ما كلا جدبو وإن جروب تط أمة الصوماليات يكفي كران محا إنه ضنا كدب سؤال شكو حكي شوية وحا إنه ضنتا يا هولها كشقان كريه سيدا وقفضت marka qaar waxa dhici karta qof aan Soomaali baahayn uu ka fiican yahay qofkii Soomaaliga ahaa
tusaale ahaan qof Soomaaliya wuxuu maanta u sharaxay xisbiga moderaadka mid kalena oo qaar ama Swedish noqdaan ama German noqdaan ama dad Muslim noqdaan u sharaxan socialka marka danta Soomaalidu marka waxay galaysaa maxaa la dhahay qofka aan Soomaaliga ahayn marka eeg waxa weeye dan organisationada ama ururada ama ummadu inay ka tashadaan dantooda waa iyaga u gaar waa qasabtaad inay sameeyaan laakiinse lama oran karo dadka Soomaalidu hal qof ha wada codeeyaan way qof kasta xaq buu leeyahay inuu codkiisa dhiibto oo qofku doon u dhiibo in adigoo mahadsan Mubarak in markii loo eego in aqoonta dadka Soomaalidu ay u leeyihiin xisbiyada wadanka jira waxa jira xisbiyo xaq jir ah oo iyagu aan jeclayn in dadka Soomaalida waliba si gaar ah markii uu sii tilmaano oo hadda muslimina boqolkiiba boqol inay ku sii noolaadaan wadankan aad uga soo horjeeda in fahamka siyaasadeed ee xisbiyada ajandayaasha u yaala laftigoodu masalada uu ka maqan dadka Soomaalida oo aqoon uma laha dad baa jira u codeeyay safar dimuqraadiga oo ognahay anke marka taasi ma tahay gaab dadka Soomaalida aysan xiisaba u qabin inay ogaadaan wadankii ay ku nool yihiin waxa ka jira iyo xisbiyadu waxay ku salaysan yihiin waxaan ku soo waxa weeye arinta horta meelo badan baa laga sheegay Soomaali badan ku khaldameen oo codeeyeen safar dimuqraadiga anu waxaan qabaa horta haday jiraan waa number aad u yar wax daba oo la oran karo Soomaali badan baa u codeysay safar dimuqraadiga ma jirto laakiin waxa jira Soomaali badan oo aan codeynin taasaan u qabaa in dhibaatada weyn tahay oo marka qaar loo turjumi karayo codadka inay ka faa'iideysanayaan safar dimuqraadiga waayo codkooda si waa codka lagu kala badinayo hadii maanta dadka aan codeyn lahaayeen oo waliba xisbiyadan kale u codeyn lahaayeen codka safar dimuqraadiga hoos buu dhici lahaa marka way jirtaa aqoon daro oo dadka mataqaanaa wadankan waan ku cusubnahay dad badan ku cusub baa jira waxdaan hore u dhaqaanina maaha waa marka wax weeye dadka siyaasiyiinta iyo media in door way ka ciyaaraan dadka ay fahansiiyaan muhiimadda ay leedahay in la codeeyo oo dadka laga dhaadhiciyo si fiican waa run dad waxaa jira wadankan aan ku faraxsanayn inay dad muslim joogaan dad mataqaanaa ajnabi inay joogaan toos uma oran karaan way marka waa cunsurnimo toosoo talaabooyin baa laga qaadaya laakiin siyaabooyin kale u hadlaya waxay leeyihiin cuntada xalaasha ayaa la keenin masaajida ayaa la dhisin marka waxa weeye si dadban baa dagaalka loola hayaa ma garatay marka anagu dadka maalin walba waan saragnaa maalin walba waan doodnaa waana dhibaato weyn runtii oo dadka muslimka ee Soomaalida inay ogaadaan weeyaan mudaharaadyo waaweyn baa la qabtay saan ognahay maalin walbana mataqaan qoladan positionkooda way sii adkeynayaan oo meeshii shalay joogay meel ka daran bay taagan yihiin waxyaabay ku hadlayaan waxyaabo ka si adag hadda waan ogeyn Jimmy Okishon ahaa ninka xisbiga safar dimuqraadiga haya inuu qoray article Aftonbladet uu leeyahay muslimiintu waa khatarta ugu weyn ee maanta Suudaan haya sidii marka laga yimaado dagaalka labada adduunka hadal uu yiri weeyaan oo maanta cadoodeed ka helaysan xitaa pageka internetka marka dadka Soomaalida horta waxay u baahan yihiin in ogaadaan dhibaatada meesha ka taagan isla markaa dad badan iyaga difaacaya oo badan ayaa jira iyaguna laakiin in la taageero u baahan yihiin in mataqaan inay cod siiyaan inay u baahan yihiin inay ogaadaan inuu dhibaatada iyo khilaafka dagaalka inuu jiro oo dhanka iyaga dantooda ku jirto ay la socdaan waa muhiim weeyaan marka TV-yada Soomaalida dadka Soomaalida badankooda ay daawadaan in arrimahan ka hadlaan oo ay u sheegaan waa arrin muhiim weeyaan adigoo mahadsan haddii qaybaha dambe barnaamijkaagii siyaasadda aynu halkaa kaga gudubno si guud dadka Soomaalida ee ku nool waddankeena Sweden waxaa soo socda doorashooyin kale oo la gaari doono haddii ilaahay nafta awooda leh nagu sugo adoo khibradaadii ka faa'iidaysanaya sanad kale soo dhaafay inteed ku dhex jirtay siyaasadda maadaama weliba nin dhalinyaro tahay maxaad fikir macnay siin kartaa oo is leedahay ha ugu diyaar garoobaan barnaamijyada dambe ee doorashooyinka soo socda wax muhiim horta la fahmo xisbiyadu maxay kala yihiin maxay aaminsan yihiin maxay ku kala duwan yihiin maxay u doodayaan taas horta muhiima kadib xisbiga dadka ku jira in la barto iyaga laftigooda oo su'aal adag la weydiiyo qofka la iskaga codeeyo maaha qof kasta la xisaabtamo weeyaan maxaad noo qabanaysaa maxaad sameynaysaa waa maxay yarta programka su'aalaha jeceshahay inaad wax ka qabatid waa su'aalahay weeyaan sidee baad wax u qabanaysaa oo markastoo fursad la helo dadka siyaasiyiinta la kulmo in su'aal adag la weydiiyo oo la xisaabtamo waayo codkan siinaysa waa codkaagii weeyaan inuu qofkan markaa keensado weeyaan taas weeyaan mid anu runtii siyaasadda waan ku cusubahay si marka loo eego oo 2010 baan soo galay inaan xil qabto 2007 waan ku biiray xisbiga marka kulay waan wadi doonaa oo haddii la isiiyo fursad fitru wanda haddii la isiiyo waan
waanu isku sharxi doonaa doorka dambana doorka dhaweyd baarlamaankan u sharaxnaa baarlamaanka weyn iyo golaha deegaanka baarlamaanka ku maanguuleysan oo codkii la rabay ma helin laakiin golaha deegaanka ayaa ku guuleystay Soomaali badan bay codeeyeen runtii oo ururooyinka Soomaalida oo dhan maalmo waxa la oran karaa arbay taageereen war lagu farxo waana ugu mahad celinayo waana fiican tahay oo runtii waxaad moodaa dadka siyaasadda inay soo jeclaanayaan soo fahmayaan waa arin lagu farxo runtii markaynu kaga gudubno barnaamijkii siyaasadda waxaa jirta arrimo kale oo aad isku daydo oo inaad ka dhex muuqato arrimaha bulshada dadka Soomaalida danta u ah iyo wixii aad leedahay magaca Soomaalida kor way u qaadayaan waxaa jirta bartada Facebook inaad soo dhigtay in aad damacsantiin in film ay diyaariyaan Hollywoodka wadanka Mareykanka oo laga jiray waxaa loo yaqaano burcadbadeed ama pirates ka qalad oo qolo walba ay fikir gooniya ka haysto barnaamijkaasi 4 Maash ma maleynayaa in uu degan yahay in laga dhigo shirooyinka ugu waaweyn ee magaalada Malmo arintaas goormaad iyadana aad dhex gashay oo aad filinkaas qaabkee kusoo heshay filinkaas hawsha say ku timi adaan kaaga yar waramo waxaa jira wiil la yiraahdo Abdixakiin jaamacadda Lund buu macalin ka yahay PhD ayuu diyaarinayaa wiil very intelligent oo aqoon-yahana Mareykanka ka yimi ayaanu maalin meel ku shaaxeynay marka sheekadana la soo gashay isaga filinkan ii sheegay markuu horeysay anu ma ogeen arrimahan de qof Soomaali horta wuu la socdaa laakiin filinkan la sameeyay iyo magaciisa iyo man anu ninkaas ii sheegay marka wuxuu leeyahay filinkan ka waran hadaan soo deeyno aydigu saasay ku timi waxaan ku baraan xiriiradeedan raadinayaa oo dadka aqaanaan wax weydiinaya marka sheekadu saasay ku timi horta markuu horeysa waxaan uu kaligayga yimi maaha waa aniga inankaas naga yimi weeyaan waanu bilownay waxaan la xiriiray marka qolo la yiraahdo OPF oo yiri anaga waan taageeri karayna hadda rabtaan inaad soo deysaan sinamoogi ma la xiriirnay kharashkii uu keenayay bay noo sheegeen wixii macquul ah noqotay filimka laftigiisa email aan u dirnay oo waxay nagu yiraahdeen waan idin soo direynaa xitaa waxay nagu yiraahdeen hadda rabtaan ninkii filimka sameeyay ayaa in yanidu istuubo filimka ka hor ka warami doona wax yar mataqaanaa ninkii dhamaay filimka sameeyay xitaa atoryaasha dhigaya ayaa wax ajir badqana private oo ay iska duubaan ugu tala galeen maalinta maalmo laga soo deenayo inay hadal yar u sheegaan dadkaas waxa kale oo iyaguna aad noo caawiyay oo hawshan naga qabanaya Somali Information Business Center oo runtii ah organization weyn oo mataqaana ka jira magaalada Malmo oo dawladda mataqaana ay ka dambayso oo mataqaana hawl fiican qabta runtii gabadha maamusha barnaamijkaas oo la yiraahdo Aamina Chama oo iyaduna ah gabadh mataqaana jaamacadda macalinka PhD holder oo gabadh professorada ayaa runtii iyaduna hawshan aad gacan weyn ka geysatay oo aad nooga caawisay marka waxa la oran karaa saddexdeenaas Aamina aniga iyo Xakiim ayaa hawshan wada wadnay waxaan markaas sameynay wax weyn ba maahan inaanu sinimo la xiriirno ku niraano imisaad siinaysa hadaan hal habeen kareysano marka weekendada kale way ka qalisan yihiin sinimoyaashu weekdayska ama maalmaha bartamada ayaa yar jaban marka arbacaan soo qabanay maalin baan calaamadeynay sidii baan mataqaana kharashkana wax naga caawiyay Somali Information Business Center iyo OPF ta marka sidaas ay hawshu hortay u socotay marka anagu marka hore ma nuslahayn interest weyn baa imaanaya laakiin markaan Facebook soo bandhignay ilaa hadda 180 bay sii marayaan baagaagana dadka yiri waan imaanayna ama laga yaabaa inaan imaano filimkana waxa laga yaabaa meeshan qabanayna waxay qaadaysaa 79 qof marka hadda waxaan ka warwarsanahay dadkan yiri waan imaanayna haday wada imaadaan halkii mubaarak hadii aynu gudagalno magaca filimkan wax baarsan yahay adigu كم وارجهان maxaad ka aaminsantahay barcabdeeda iyagu marbiyoodka Soomaaliya ku noqday dadka adduunka ugu caansan niyo horta waxa jirta arin dadka Soomaalidu ay badankoodu wada og yihiin laakiin aan dhaafsanayn dadka Soomaalida marka la yiraahdo si marka loo yiraahdo waxa weeye arintan barcabdeedka waxa loo yaqaano anu kelmadda inaan isticmaalo xitaa ma jeceli runtii wax cirka ka yimi oo mataqaan hal mar la iska maaha wax kasta waxa jira root causes sabab baa jirta waxa uu yimaadaan sababooyinka barcabdeedku ku yimaadeen waa wada naqaan dad Soomaaliyeed ahay waxaan ognahay badaheena in dad mataqaana ajnabiya in si mataqaana xaq darra oo mamnuuca ay uga kalumaystaan oo badii kalunka ka dhameeyeen kaaga daran waxa jirta xitaa in marar badan arimooyin suna lagu daadiyay badaha Soomaaliya
oo waa wax dadka Soomaaliyeed ay wada og yihiin oo aan laakiin waxba laga qaban markaas isla markaasna mataqaanaa arintaas la oran karaa ayaa u sabab ahayd inay mar sameysmaan burcadbadeed filimkuna micnuhu horta xambaarsan yahay waa taas filmo hore oo la sameeyay baa jira burcadbadeed oo markaa ka sheekanaya Soomaali oo sidii dad matala sidii bahal oo dad wax iska aftuubanaya laakiin filimkan uu ka duwan yahay filmada hore waa filim ka sheekanaya wiil Cabdi la yiraahdo wiilkaas oo ah nin dhalinyaro oo family leh oo mataqaana kaluumaysta ah reerkiisii uu ku masruufaa kaluunkaas kaawna kaluumaystu ahaa badii marka kaluunkii uu ka waayay oo de mataqaana xarigan yar ay ku kaluumaysanayeen waxa meeshii maana doomo waaweyn oo de badii waxa ku jiro dhaba ka haysanaya marka maxaa la yiraahdaa ninkan isna reerkiisiina way ooyaan oo de inuu masruuf u baahay marka fursadaas ku kaliftay inuu raaco qaar burcadbadeeda xitaa waxa jirta filimka senior oo aad u dareen badan runtii mar lagu leeyahay pirate baa tahay burcadbadeed baa tahay uu leeyahay may anu kaluumaysti baan ahay iskuma arko isagu laftigiisu inuu yahay qof burcadbadeed ah aso dareenkiisa kuma jirto inuu yahay nin dambi geysanaya waa nin mataqaanaa ay dad ku kaliftay marka waxa weeye filimku micnahaas waxa xambaarsan yahay anaguna waxaan sameyn doonaa filimka markuu dhamaado dood baan sameynaa waxaan rabnaa markaa oo micnaha dhan aan arintan u sameynaa waxa weeye in aanu dadka fahansiino dhibaatada ka jirta dhulkaas waxaan ognahay burcadbadeedkii waxyaabooyin talaba laga qaaday oo maanta badaha Soomaaliya military ba ka buuxa oo joojiyay burcadbadeedkii laakiin se uma haystaan militarigaasi mandate ay ku joojiyaan dadkan sida khaladka badda uga kaluumaysanaya marka dadkii tuugta ahaa ee badaha ka kaluumaysanayay way soo noqdeen oo maanta way ka kaluumaystaan badeeni isla markaana burcadbadeedkiina waa la joojiyay doomahan militariga way joojin karaan laakiin ma haystaan mandate sababta aan u haysan waxa weeye dhibaatadan inagana haysata dadku kama hadlaan ma sheegaan lama oga marka wadankan waxa jirta wax la yiraahdo opinions building dadkan aad wax ka dhaadhicisay marka hore markaas talaabo dhacaysa marka tiibaan wadnaa hadda waan rabnaa dadka inay fahmaan dhibaatada ka jirta wadankii mubarak adigu mahadsan hadii sawir guud aad ka bixiso runta xaqiiqada ka jirta badihii Soomaaliya oo waa arintan ka hadlayna hadda ma jirto cid isu xaqaanta oo inta badan ka hadasha dhibaatada ay ku hayaan kulmaystadan ajnabigu badii xabii Soomaaliya laakiin focuska wax la saaray wax weeye arintan burcadbadeed marka arintan ma laga yaabaa inay mustaqbalka yeelato dad u dhaqdhaqaaqa in dadkan kulmaysanaya ajnabiga macni in mandate in loo raadiyo lagu joojiyo halkaan waxa weeye way jiraan dad ka hadla runtii waan ognahay professor Cabdi Ismaaciil Samatar inuu qoraal badan ka sameeyay arrimahan Al Jazeera documentary fiican bay ka sameeyeen dad badan oo arrimahan ka qoray way jiraan laakiin se waxa muhiim ah qof kasta meesha uu joogo inuu opinion ka sameeyo qoraallo Swedish oo badan oo laga sameeyay ma jiraan dhowr article runtii ka hadla xitaa way jiraan laakiin ma badna maxaa la leeyahay marka inaga dadkii marka fursad u haysta arrimahan inay wax ka sheegi karaan inay ka hadlaan oo ay sheegaan waxa weeyaan su'aalooyin aan qof kale ka hadli doonin haddana inagu ka hadlin maanta saan u ognahay kulligeen ayaan dadka kale aan u ogeyn marka waxa weeye in qof kasta Soomaaliya oo xil baa saaran inuu ma taqaana marka anigu laba arrimood arintan muhiim bay u tahay mar waxa weeyaan badihii wadankeena oo la badbaadinayo oo arrimahan de laga joojinayo arin kale oo iyadoo micno kalena wax xambaarsan tahay dadka Soomaalida ee ku nool wadankan waxa loo arkaa dad ma taqaana sawiro xun baa jira oo laga aaminsan yahay oo ka mid dad ma taqaana terroriska al-shabaab dagaal maxalada gaajo pirates marka inta laftigeeda wixii laga bedeli karaayo laga bedelo waayo hadda waxaan ka hadalnaa dad Soomaaliya oo aan shaqeynin oo kale laakiin qof markuu shaqo soo dalbado uu interview marayo uu yiraahdo background waa Soomaali markiiba ninkan interview ka qaaday sawir buu u soo baxaya ma Paris buu ahaan jiray ma al-shabaab ku jiray waxa weeye inta laftigeeda wax laga hortago oo sawirka la tuso dadka inaan dadka ma taqaana ay nolol leeyihiin inay waxyaabo soo barteen inay ma taqaana ay sabooyinka sababay inay maxana yimaadaan ha marka taasna way xambaarsan tahay oo micno loo sameeyo tala kalena waxa weeyaan arintan si gaar ah in mataqaana looga hadlo marka anigu waxaan isku dayaa mar walba meeshan aan ku noolahay especially magaalada Malmo
intaan mataqaanaa wax ka samayn karaayo inaan ka sameeyo hadda filinkan markan aan soo deynino waxaan hadda qoray article absurd ku qoray waan doonaya inaan daabaco wali journaalada uma dirin waan u diraya dhawaan oo arrintan ka hadli doona marka saan u ekaanin inta kaliya filinka timi filinka daawanaya waxaan isku dayaynaa inaan gaarsiino dadka kale xitaa programku markuu filmku dhamaadana dood baa imaan doonta gabadha professorada Aamina ayaa su'aalaha wadi doonta marka waxa weeye arrintan waa in dadka Soomaalida oo dhan ay gacan ka geystaan weeyaan adigu mahadsan Mubarak هذا أوليه يبرنامج كود كوجت أنا أتفيلن كان كوسان بندق الهيدان دتك هذا كومر تيجي لسان وكلام هذا أودرتين هنا يكسر قريب كلام فيلن كان ما دتك سوماليدون بهذا معني تارجت كاسارة مسي واجرت دتك اللون ولا هي سودشكو إن أي معنيه لفت جود قريب خلق دتك ده هذا البرنامج ما كلا سوعي كنا قف كستو متقنع ماشي ما دور الفيلم كون دون داورنا وويلكم muhiimadu waxa weeye horta dadka Swedish-ka inay filimkan daawadaan oo arkaan dhibaatadan iyo sababta kaliftay inay arkaan waa muhiim even dadka Soomaalida laftigooda maadaama yahay filim af Soomaali ku hadlaya wadankooda laga hadlayo way xiisanayaan so of course dad badan Soomaaliyana way imaanayaan way daawanayaan marka laakiin labada group waa la oran karaa waa target laakiin qof kasta oo imaadana de waa welcome weeyaan oo xitaa waxaan ka dhignay filimka in bilaash lagu daawado oo lacag la bixin kharashkii ku baxay oo dhan anaga cover gareynayna marka qof kasta oo marka doonaya inuu imaado uu ku soo dhawaanaya Mubarak adigu mahadsan xajirta magaalooyin kala waaweyn oo wadankan laftigooda ay ku yaala oo dad Soomaaliya badan ay degan yihiin filimkan oo kale laga yaabaa inaad magaalooyin kale sida Stockholm oo kale caasimadda ama magaalooyin kale oo laga yaabo in mustaqbalka aad macni gaarsiisaan si dadka Soomaalida uga faa'iideystaan iyo waliba dadka la nool ma jirtaa hortay waa bay la soo xiriireen inamo dad reer Stockholm Uppsala waan gaarsiinay horta Soomaalidu waxay ku fiican yihiin wax weyn dadku isku dayadaan marka waxyaabo fiican la iska dayado way fiican tahay waan caawinayna dad doonayaan dad kale inay sameeyaan barnaamijkan oo kala wadadan u marnay sidaan sameynay waan u sheegaynaa si qof kale uu sameeyo haddii rabaan in anagu qabanana de waan u qaban karnaa wax dhibi ma jiraan marka waan isku dayi doonaa because waxa weeye waa arin muhiim ah inaanay magaalada kaliya ku ekaanin inaanu magaalooyin kale xitaa geeyno xitaa waxaan ku tala jirnaa haddii uu interestku aad u bato maadaama 180 qof ay yiraahdeen waan imaanaynaa waliba ka bataan isla markaana kuraastuna 78 yihiin inaanu xitaa mar labaad ugu celino oo mar saddexaad ugu celino haddii mataqaanaa sida dadka baahidooda loo cover gareeyo filimkii كمبنيجي إسكالها قابكي أبو الله حررتين يو أوغلان شهودي يو إن كلبير باشرو يوتيوب كوتشرا ولكن فيلم كنا كمو باشرو إن مركا إن أوغلان شو كلا إن والباهين ما صوما أفسوان كوالا ويسكا قادن كرو كلا برامج كاس ملقا يا ما قرض فايس هذه لا حريرو إن waxaa jirta meel wax laga screening oo ah marka in filimkii la dalban karayo marka prices kala duwan baa jira price wuxuu ku xiray habka loo soo deynayo ma jaamacad baa loo soo deynaya ma urur baa soo deynaya ma tiyaatar baa soo deynaya ma shirkad baa soo deynaya way kala duwan yihiin marka qofku uu dooranaya meesha ku haboon marka fursado badan baa jira waana rabaan oo dadkan filimka sameeyay lacag badan geliyay way rabaan filimkoodii in meel badan laga daawado marka kharashkuna kharashaad fara badan ma ahayn marka waan kula talinayaa qof kasta daawanaya maanta inuu ka faa'iideysto oo magaalada uu joogo uu sameeyo barnaamij noocan oo kala runtii waxtar badan way sameynaysaa Mubarak aad baad u mahadsan tahay kullaba waxaan wada sugnaana waa barnaamijkaas iyo afarta match gabagabadii dadka Soomaaliyeed maxaa faraysan waxaan falayaa wadan waxaan joognaa horumarsan fursado badan baa jira in fursadooyinka laga faa'iideysto hadda waxbarashadu waa bilaash weeyaan jaamacadu waa bilaash in laga faa'iideysto technology badan baa yaala aqoon badan baa taala information badan baa yaala marka inaan waqtigeena aanu xaggan joogno inaanu ka faa'iideysano ama nafteena ha noqoto family-geena ha noqoto wadankeena ha noqoto in laga faa'iideysto waa arintan falaayo dadka Soomaalida waxa weeye dadkii anagana sugayaan marka inaan wax u qabano weeyaan waa arrin saaran marka waqtigeena yaan lumin dawadayaal intaasina waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii kulanka Karsan oo toddobaadkan martii noogu ahaa Mubarak Maxamed Cabdiraxmaan oo isagu ah siyaasi
dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Malmo oo waliba ah xubin baarlamaanka golaha deegaanka magaalada Malmo oo ugu jira xisbiga Social Democrat oo hadda isagu talada wadanka haya intaaynu barnaamijkan mid ka xigala ku kulmi doono ودمانتين وتكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبو محسن